السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaraysa qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona iyadoo maalinkii 22aad uu socdo dagaalka culus ee ka socda bariga dhexe Iiraan iyo awlaadeeda oo goordhow sheegay in ay gantaal la heleen mid kale oo ka mid ah diyaaradaha cadawga sida ay yiraahdeen taangiye la gubay weerar culus oo la isdhaafsaday Mareykanka oo isaguna sheegay inuu ku qaaday Iiraan weeraro loo isticmaalayay 5,000 oo ratal bambooyin oo loogu talagalay dhulka hoostiisa magaalooyinka ka dhisan iyo sawaariiqda ku jirta in halkaa lagu burburiyo xaaladda oo sii kululaanaysa ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu haynaa madaxweynaha Masaarida Cabdifataax Asiisi oo safar degdega ku tagay magaalada Jidda isagoo halkaas xilligan kulamo kula leh dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan haddaba khaliijka iyo dowladaha carabta maxaa la gudboon ma weerari doonaan Iiraan mise waxay ku adkaysan doonaan istifaacidooda haddaba akhbaaraadkii ugu dambeeyay ayaanu barnaamijka ku soo gudbin doonaa inta aan ku jirno barnaamijka warar cusub hadday soo kordhaanna waan qodobo kala duwan oo ku saabsan dhammaantood dagaalka culus ee ka socda bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay weerarada la isku qaaday saacadihii la soo dhaafay haddaba telefishinka Al-Jazeera ayaa goordhow qoray in markaa sawaariiqda Iiraan ama gantaalaha Iiraan ee ku socda Israa'iil markii saddexaad ilaa saakay la weeraray oo 3 jeer oo isxigxigay gantaalo roobka looga dhigay Israa'iil haddaba warbixinta way sii socotay waxaa la leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa goordhow waxay sheegeen mawjadii weerar ee 72 ee ka dhan ah ee goobaha ay joogaan xoogga ku haystaan gumaystaha sida la yiri ayaa la weeraray waa mawjadii 72 oo la weerarayo dhulka ay Israa'iil xoogga uga haysato carabta oo Israa'iiliyiintu ay degan yihiin haddaba waxaa la sheegayaa in la adeegsaday mawjadan gantaalo awood badan oo halis badan oo meeshii loogu talagalay ku dhacay waxaana noocyadooda la kala yiraahdaa qadar iyo cimaad haddaba bartilmaameedyadan la bartilmaameedsaday waxaa soo kale barbar socday dhinaca waqooyiga Israa'iil oo iyaduna weerar lagu qaaday iyo sidoo kale iyadoo la isticmaalayay hanaanka horumarsan weerarada si markaa loo guulaysto oo weerarada ay dhammaantood ku dhammaadeen sida Iiraaniyiintu ay sheegeen sidii loogu talagalay waaye marka waxaa la sheegayaa marka dufcadii waxaa la marayaa 72 nambarkaas waa socdaa nambarkan 1 waa laga soo bilaabay ilaa 72 waa la socdaa dufcad markaa saakay waaga markuu bariyay ilaa hadeer 3 weerar oo kala duwan ayaa Israa'iil lagu qaadaa leeyri waxaana la isticmaalay gantaalo loogu talagalay meelihii loogu talagalayna way ku dhaceen marka dhanka kale Mareykanku iyaguna taliskooda dhexe warar soo saaray waxay sheegeen inay duqeymo ay u isticmaaleen 5,000 oo ratal bambooyin culeyskooda uu dhan yahay inay Iiraan ku weerareen ujeedka waxa way yiraahdeen dhulka hoostiisa gantaalaha ku jira inaynu burburino marka dhinacyada wax la isu naxaya male si fiican la isu garaacaya maadaama maanta ay marayso maalinkii 22aad la socdaa bil ayay Iiraan difaac ku jirtaa oo dhagaha iska garaacayaan dhinacyada waayahay haddaba maxaa ka soo kordhay marka qorshaha Mareykanka la leeyahay ciidan dhulka ah ayuu rabaa inuu jasiirad badda ku taala oo Iiraan ay leedahay shidaalka laga dhoofiyo inay ku degaan oo halka ay qabsadaan maxaa marka ka dhalan doona haddaba aan tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekadaas ku saabsan warbixin dhinaca Iiraan ka soo baxday waxay sheegaysaa Mareykanka inuu wajihi doono iska caabin aan hore loo arag haddii uu isku dayo inuu weerar ku qaado jasiiradda la yiraahdo Kharak ee Iiraan ay leedahay wakaaladda wararka Iiraan ee la yiraahdo Tasniim ayaa warbixin military oo ay soo xiganayso waxa ay sheegaysaa
in maraykanka uu la kulmi doono weeraro aanu weligii arag haddii uu isku dayo inuu ciidan geeyo jasiiradda la yidhaahdo kharaak oo ah jasiirad badda ku taalla oo iiraaniyiintu ay leeyihiin. jasiiradda marka waxay leeyihiin waa meesha ugu badan shidaalka iyo laga dhoofiyo iyo waxa dhan. maraykanku marka ciidamadan hadda maraakiibta uu ku keenayo mariniska badda ah ayaa waxaa leeyahay inay weeraraan ay rabaan jasiirad. laakiin iiraan hadda waa u sheegtay, waxay tiri waxaa hore loo arag aa idin qabsan doona haddaa jasiiradeena cag soo dhigtaan oo isku daydaan. marka sheekadaas iyaduna way kulushahay oo maraykankii markii cirkii iyo wixii oo dhan laga daalay ayaa hadda waxay leeyihiin jasiiradaas ayaanu qabsanaynaa si aan cadaadis u saarno iiraaniyiinta inay maaragtay iyaguna ay furaan marinka hormus. marka sheekada iyaduna halkaasay joogtaa. dhanka kale warar dhanka iiraan kasoo baxa waxay sheegayaan in dowladaha qaar loo ogolaan doono inay maraakiibtooda maraan hormus. dowladaha hadda u sharaxan oo inay la fasaxo hadda la fasixi doono waxaa ka mid a jabaan oo kale. dowladda jabaan waxaa wada hadlay mas-uuliyiinta jabaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan. jabaan waxay tiri annagu wax shaqaa weerarada laydinku hayo kuma lihi kuma jirno, xataa ma ogolin in maaragtay weeraradiina iyo dhibaatada laydinku hayana waa kasoo horjeednaa. marka jabaan marka hadda waxaa laga yaabaa in la fasaxo ayaa laga yaabaa. qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijkaaynu kusoo qaadanayno, xisbullah ayaa iyaduna goordhow warbixino cusub soo saartay. waxay sheegayaan taangiyo ay gubeen iyo duqaymo kala duwan oo ay ku qaadeen ciidanka israa'iil. haddaba warbixinta xisbullah ay soo saartay haddaynu u gudubno waxaa leeyahay xisbullah waxay sheegeen inay markaa la heleen gantaal taangii la yidhaahdo mirkava deegaanka la yidhaahdo annaaquura ee ku yaalla koonfurta lubnaan, halkaasoo ciidamada israa'iiliyiintu ay soo galeen. haddaba waxaa la sheegayaa inay gantaal la heleen taangiga mirkava oo markaa weerar culus ay ku qaadeen. waxay sidoo kale xisbullah sheegeen inay gantaalo ku weerareen taliska hogaaminta dhanka waqooyiga u qaabilsan ciidamada cadowga israa'iil sida ay yidhaahdeen. waxay sidoo kale daronis ku weerareen goobo ay ciidanka israa'iiliyiintu ku sugnaayeen deegaanka la yidhaahdo kiryat shimona. waxay sidoo kale bartilmaameedsadeen gantaalo iyagoo la beegsanaya goobaha xarumaha ciidanka israa'iil iyo goobo kale oo markaa ku aadan deegaanka la yidhaahdo markaba al-xuduudiya. waaya shaqada marka way socotaa. naar waa meesha alaabtii waa socotaa. naar taxta naara socota. dhankan xisbullahi iyaduna dhankanay jugta ku haysaa. wixii xuduudka lubnaan iyo israa'iil iyo dhulkaas joogay dhagaha ka garaacisaa. waxaa lagu leeyahay dadka ka barakacay yahuudi ka carartay meesha waa yaabaysa isaga tageen oo maaragtay guri la-aan ay hayso. qaarkoodna dowladda hoteella inta dejisay dadka waayeelada hoteeladii wixii qarash fara badan dowladda israa'iil ku socdo. xaalku dee waa iska allow sahal, sheekadu waa adag tahay. marka labada dhinacna wax la isu reebana male. waayahay war goordhow soo baxay iiraan waxay sheegtay inay gantaal la heshay diyaarad nooca la yidhaahdo F-16 oo israa'iiliyiintu ay lahaayeen sida la leeyahay. diyaaradda gantaalka lala helay maxay tahay F-16. maalin ka horna maxay ahayd F-35. diyaaradihii markaa gantaal bahal xasuuqa ay diyaaradihiiaba yimidba hadda. iiraan waxay leedahay gantaalkan hadda aan la soo baxno diyaaradaha nagta ka saaraya waxaaba samaynay 12 maalmood dagaalkii hore ayaanu samaynay kadib. halkaas laakiin reer galbeedku way diiday waxay leeyihiin gantaalkan iiraana iska baalkii Chinese laga keenay, China iskale. marka dagaalka marka waa sii kululaanaya. iiraanna marba waa hub cusub ayay tijaabinaysaa. haddaba markaan tusoo jeeradda la yiraahdo ra'yul yawm waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa goordhow sheegay inay gantaal la heleen diyaarad dagaal oo nooceedu yahay F-16 oo Israa'iil ay leedahay, taasoo xilliga la weerarayay ku sugnayd bartamaha iiraan dusha sare iyadoo joogta ayaa lagu dhuftay gantaalka. haddaba ciidanka Israa'iil ayaguna waxay ictiraafeen oo markaa ay sheegeen
in isku day la doonayay in lagu rido diyaaradooda lagu soo rido ay fashilantay. macnaha xaariska waxay yidhaahdeen waa la helnay gataalka meelay ku dhacda ma naqaano, gataalkii waa lala helay, waa carartay. israa'iiliyiintuna way qirteen, waxay leedeen way ictiraafeen macnaha waxa inay dhaceen, laakiin waa lagu fashilmay taageen iyagu wuxuu waa lagu fashilmaa. marka haddii lagu fashilmay diyaaradii xaggee aade lama yaqaano. F-35 oo kale waa gobolkay ku degtay yidhaahdeen, gobolka maxaa gobolka lama yaqaan miya, eraboor bala miya gobolka. marka sheekadu marka halkaasi mare xaaladdu waa soo kululaanaysaa marba marka ka dambaysa, dagaalkuna waa sii adkaanaya. haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa madaxweynaha masaarida cabdifataax asiisi oo safar aan hore loo sii sheegin ku jooga haddeer aan idila hadlayo magaalada jidda ee boqortooyada. haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa madaxweynaha dalka masaarida cabdifataax asiisi ayaa socdaal aan hore loo sii sheegin wuxuu ku tegay magaalada jidda boqortooyada sacuudi arabiya. maalmo ka horna waxa uu tegay magaalada dooxa, wuxuu la kulmay amiirka dalka qatar. haddaba wadamadii khaliijka iyo masaarida way shirayaan, waxay leeyihiin maxaan samaynaa. masar waxay leedahay maxaan qabanaa, weerar ma ku qaadnaa iiraan, haddaan weerar ku qaadno ma israa'iil aan la safanaynaa oo ku dhinac noqonaynaa, maxaa dhacaya. istifaaciddii maxaa samaynaa, dee intaan ka badan yaa istifaaci kara. weerarada lagu qaaday khaliijka way iska socdaan, maantaba waa arkayay sacuudiga diyaarada soo riday, kuwait, baxrayn, imaaraadka, weli waa lagu wadaa weerarka. marka wadatashi albaabada u xiran yihiina u socda. dowladda masar iyo sacuudiga awalna qatar iyo masar way soo shireen. marka bal waa arki doonaa wixii carabtu ay isla gaaraan. laba daran mid dooraa haysata, wareeraa taagan, qaabay isu difaacaan oo macnolena ma yaqaanaan. haddii waa la isdifaaca la yidhaha waa in iiraan la weeraro, iiraan haddii la weerarona waa inaa israa'iil safkeeda geshid. marka sheekadu marka halkaasay ka qasan tahay. wararkii ugu dambeeyay intaa ayaynu ku joojinaynaa. asxaabay barnaamijka laygareeya oo sheergareeya si aad u heshaan mar walba macluumaadka iyo wararka ku saabsan dagaalka culus ee socda oo aanu halkan idinkaga soo tabinayno. inta aan mar kale kulmayno, nabadgelyo.